بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiinta what is a consumer price index. aan wax ka barano mid ka mid ah qaababka loo cabiro sicir bararka oo loo yaqaano consumer price index loona soo gaabiyo CPI. haddaba CPI waxaa lagu cabiraa heerka sicir bararka uu gaarsiisan yahay maadaama aanan badeecadaha iyo adeegyada oo dhan isbeddelka qiimahooda la xisaabin karin. waxaa laga qaataa qayb ka tirsan badeecadaha iyo adeegyada si loo ogaado isbeddelka qiimahooda ku imaanaya inta lagu guda jiro xilli cayiman. tusaale sanad walxaha lagu daro salada lagu cabirayo isbeddelka qiimaha waxaa ka tirsan raashinka, waxbarashada, caafimaadka, isgaarsiinta iyo wixii la halmaala oo aanan looga maarmin nolol maalmeedka dadka. haddaba marka la ogaado isbeddelka qiimahooda ama heerka uu gaarsiisan yahay sicir bararka ayaa shirkadaha iyo dowladaha ay mushaarka u kordhiyaan shaqaalaha. sidoo kalena dulsaarka deymanka bangiyada sare ayaa loo qaadaa oo waayo waxaa la rabaa in lala jaan qaado heerka sicir bararka uu gaarsiisan yahay. aan isla fahanno tillaabooyinka la qaadayo si loo xisaabiyo CPI. kow, dooro base year oo ah sanadka aan rabno inaan ka dhigano tixraac si aan ula barbar dhigno sanadaha kale oo aan u fiirino heerka sicir bararka uu gaarsiisan yahay. tillaabada labaad, waxaad doorataa walxaha aad rabtid inay ka tirsanaadaan salada lagu ogaanayo qiimaha badeecadaha iyo adeegyada sida waxbarashada, caafimaadka, raashinka iyo wixii la halmaalo. tillaabada saddexaad, waxaad bilowdaa inaad diiwaan gelisid qiimaha badeecadahaas iyo adeegyadaas. tillaabada afaraad waa in aan xisaabino bal aan aragno qaabka loo xisaabiyo iyo qaacidada la isticmaalayo. CPI waxaa lagu helayaa qiimaha badeecadaha iyo adeegyada ka tirsan salada sanadka aan rabno inaan ogaano ayaa waxaa loo qaybinayaa base yearka oo ah sanadka aan rabno inaan ka dhigano tixraac. xogta ka soo baxda ama qiimaha ka soo baxa ayaan ka bacdi waxaan ku dhufanaynaa 100. waxaan haysanaa xogta 2018 ilaa 2021. waxaan kaloon haysanaa celcelis qiimaha badeecadaha iyo adeegyada ka tirsan salada. waxaa kaloo xusid mudan in sanadka 2019 aan u dooranay base year oo ah sanadka tixraaca ah ama aan rabno inaan la barbar dhigno sanadaha kale. haddaba waxaana laga rabaa inaan qiimeyno ama soo helno CPI. waxaan jeclaan lahaa inaad videoga joojisid oo aad isku daydid inaad xisaabisid CPI kala duwan adoo adeegsanaya xogta hortaada ka muuqata iyo formuladaba. aan aragno tusaale ahaan sanadka 2021 celcelis qiimaha waa 60. haddaan u qaybino 40 oo ah sanadka base yearka kadibna aan ku dhufano 100 waxaan helaynaa 150. midaas oo akhriskeedu noqonayo qiimaha waxa uu kor aaday 50 marka loo fiiriyo sanadka tixraaca ah oo mar waliba ogsoonow in base yearku uu ahaanayo 100 waayo marka laba tiro oo isla eg la isku qaybiyo waxaa soo baxaysa hal. haddaan ku dhufano 100 waxa ay noqonaysaa 100. oo tusaalaheena sanadka 2019 waxaan haysanaa qiimaha oo ah 40. haddii aan u qaybino isla 40kaas maadaama isla sanadkaas uu inoo yahay base year waxa inoo soo baxaysa hal. kadibna aan ku dhufano 100 waxa ay noqonaysaa 100. isla tusaalaheena waxaa xusid mudan in sanadka 2020 aan ku qornay farta cagaarka ah inay soo baxayso 88. taa uu micnaheedu yahay waxaa jira deflation oo liddi ku ah sicir bararka. midda uu micnaheedu yahay lacagteena qiimo ayay yeelatay oo waxa ay goynaysaa alaab ka badan tii sanadkii hore ay goynaysay. markana aan isla fahanno sida loo cabirayo inflation rate. qaacidada hortiina ka muuqata ayaa ah sanadka aad rabtid inaad cabirtid ee u taagan CPI 2 ayaad waxaad ka jaraysaa sanadkii hore oo u taagan CPI 1 isla sanadkaasna ayaad u qaybinaysaa oo ah CPI 1 kadibna waxaad ku dhufanaysaa 100. aan tusaale u qaadano sanadka 2018 ma cabiri karno waayo xogta ku saabsan 2017 ma hayno. sababtaa ayaan ugu qornay NA oo u taagan not applicable. aan markalna aragno 2019 waa sanadka aan rabno inaan ogaano boqolkiiba imisa ayaa ku dheeri ah qiimaha badeecadaha iyo adeegyada
marka loo fiiriyo sanadkii hore. haddaba sanadka 2019 CPI waxa uu ahaa 100 halka sanadka 2018 uu ahaa 113 balaan ku dabaqno qaacidadii aan haysanay oo ahayd 100 laga jaray 113 loo qeybiyay 113 wixii ka soo baxana aan ku dhufano 100 waxay noo soo baxaysaa ku dhawaad 12% sanadaha kalena isla qaacidadaas ayaan isticmaalnay oo isku day og dheeraada oo ku saabsan sicir bararka iyo sababaha keena sicir bararka fadlan ka dhigaysa lifaaq hoose oo aan hadda kaga soo hadalnay baad sanadiin waa inoo markaa haddii rabiidmo